13:30 horas. waa Oktoobar 13keedii 1977 11kii subaxnimo waa duulimaadkii 181aad ee diyaaradda Lancet oo ay lahayd shirkadda Lufthansa ee dalka Jarmalka. diyaaraddaasina waxaa saarnaa 86 qof oo rakaab ah. waxay ka soo duushay garoonka Palma de Mallorca ee ka tirsan dalka Spain waxayna ku sii jeeday magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. diyaaradda Lancet oo nooceedu ahaa Boeing 737 duuliyaha koowaad ee diyaaradda waxaa lagu magacaabi jiray Jürgen Schumann waxaana caawinayay duuliyaha labaad Jürgen Vietor. 30 daqiiqo markii diyaaraddu hawada ay ku jirtay 4 qof oo rakaabka ka mid ahaa ayaa istaagay waxaana ay la soo baxeen baskoolado iyo bambooyin iyagoo sheegay diyaaradda inay afduuban tahay. xubnaha afduubka geystay ayaa ka tirsanaa jabhadda Falastiiniyiintu ay lahaayeen xilligaasi oo la odhan jiray PLO. sababta ay diyaaradda u afduubeen ayaa ahayd inay u argudaan hogaamiye jabhadda Falastiiniyiinta ka tirsanaa oo lagu dilay howlgalkii ciidamada Israa'iil ay ka furiyeen garoonka Entebbe ee dalka Uganda oo laga dajiyay diyaaradda ay afduubeen jabhadda Falastiiniyiinta. waxaa kaloo Falastiiniyiintu diyaaraddani sababta ay u afduubeen ka mid ahayd inay u hiiliyaan maxaabiis ka xidhnaa falaaga Jarmalo oo la odhan jiray Red Army amaba ciidanka cascas. falaagadaasi oo xiriir dhow ay lahaayeen jabhadda Falastiiniyiinta. 4 xubnood ee afduubay diyaaradda Lancet ee waddanka Jarmalka laga lahaa waxay kala ahaayeen 2 nin oo 23 jir ah iyo 2 haween oo 22 jir ah waxaana hogaaminayay 23 jir Falastiiniya oo lagu magacaabi jiray Suhayr Yusuf Akash oo intii afduubku socdayna la magac baxay Shahiid Mahmoud. waxaana xubna ka ahaa Suhayl Saayi oo ahayd 22 jir Falastiiniyada iyo 2 u dhashay waddanka Lebanon oo kala ahaa Wabiil Harbi oo 23 jir ahaa iyo Hinda Alameh oo 22 jir Lebanon ka soo jeeday. hogaamiyaha kooxda Suhayr Yusuf Akash oo markii dambe caan ku noqday Mahmoud ayaa bistoolada furay waxaana uu caawiyihii duuliyaha ku amray inuu rakaabka ku biiro. Mr. Mahmoud hogaamiyaha kooxda diyaaradda afduubtay ayaa gudaha u galay qaybta diyaaradda laga wado waxaana uu duuliyaha diyaaradda oo lagu magacaabi jiray Jürgen Schumann uu ku amray inuu diyaaradda ku leexiyo jasiiradda Qobrus. duuliyaha Schumann ayaa waxa uu yiri kuma leexin kara Qobrus sababtoo ah shidaalka diyaaraddu kuma filna waxaana ka haboon ayaa uu yiri inaynu ku leexano Roma oo ah caasimadda Talyaaniga si diyaaraddu halkaasi ay uga sii qaato shidaal dheeraada. Captain Mahmoud oo kooxda afduubka hogaaminayay waa uu ogolaaday arrintaasi. Aeropuerto de Roma, Italia. markii diyaaradda afduuban ay caga dhigatay magaalada Roma ayaa waxa afduubayaashu ay soo bandhigeen waxa ay dalbanayaan in la siiyo waxaana ay dalbadeen in la sii daayo 12 maxbuus oo ka tirsanaa kooxda ciidamada guduudan oo ahayd falaaga Jarmala oo ay gacan saar lahaayeen jabhadda Falastiiniyiinta iyo xubno ka tirsan jabhadda PLO ee Falastiin oo xidhnaa xilligaasi. waxaa kaloo ay dalbadeen in la siiyo 15 milyan oo lacagta Mareykanka. markii dawladda Jarmalka galbeed ay maqashay dalabka kooxda wax afduubay ayaa wasiirka amuuraha gudaha Jarmalka galbeed waxa uu xiriir la sameeyay wasiirka amuuraha gudaha ee Talyaaniga Francesco Cossiga waxaana uu ka codsaday in diyaaradda taayirada laga toogto si loo xanibo dhaqdhaqaaqa diyaaradda iyo duulimaad kale inay samayso. wasiirka daakhiliga Talyaanigu markii uu la tashaday saraakiishiisii ammaanka waxa uu cuntami weeday in diyaaraddaasi taayirada laga fadhiisiyo waana uu diiday dalabkaasi uga yimid Jarmalka galbeed. saraakiisha Talyaaniga ayaa shidaal ku shubay diyaaradda afduubnayd dabadeedna waxaa dableyda laga codsaday in diyaaraddaasi ay ka haystaan oo ay la tagaan meesha ay ku wadeen. dableyda iyo diyaaraddoodii ayaa ka duulay Roma iyagoo xitaa aan sugin inta laga hubinayo in diyaarado kale hawada ay ku soo jiraan iyo in kale. waxaana ay u jihaysteen magaalada Larnaca oo ku taala xeebta koonfureed ee jasiiradda Qobrus 5:45 daqiiqo oo galabnimo. diyaaradda afduubnayd ee Lancet ayaa caga dhigatay magaalada Larnaca ee jasiiradda Qobrus 8:15 habeenimo iyadoo garoonka magaaladaasi ay yimaadeen xubno ka tirsan jabhadda Falastiiniyiinta. waxa isgaarsiinta radio-ga ee garoonka ay kula hadleen hogaamiyaha kooxda Captain Mahmoud. Are you Captain Mahmoud?
Yes, I am Captain Mahmoud. Can you speak with me in Arabic, please? I want to speak with you, okay? Wherever you are, and back off! hase yeeshee wadaxaajoodka lagu doonayo diyaaraddaasi afduubka lagaga badbaadiyo wadaxaajoodyo la doonayay in dableyda lagaga dhaadhiciyo diyaaradda inay sii daayaan ayaa dhammaantoodba guuldaraystay waxaana loogu shubay shidaal dheeraada duuliyaha diyaaradda Mr. Schumann ayaa kooxda diyaaradda hagta ee garoonka Qubrus ka codsaday inay ku beegaan khadka duulimaad ee ku xidhi kara magaalada Beirut ee dalka Lebanon waana loo fuliyay codsigiisa markii uu hawada galay ayaa loo sheegay garoonkii Beirut inuu xidhan yahay suuragal aan ahayn diyaaraddaasi ay fadhiisato waana laga diiday dalabkooda halkaas inay caga dhigtaan dableydu waxa ay dalbadeen diyaaradda in loo leexiyo dhinaca Suuriya gaar ahaan magaalada Dimashq ha yeeshee mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimashq si la mid ah magaalada Beirut ayay u diideen in halkaasi ay soo fadhiisato diyaaraddu haddana waxay tijaabiyeen inay ku leexan karaan magaalooyinka Kuwait iyo Baghdad kuwaasina waa laga diiday haddana waxay ku fakareen inay u leexdaan dhinaca jasiiradda Bahrain isagoo markaasi ku cabanaya in diyaaraddu shidaalkii ka sii dhamaanayo una baahan yihiin in la siiyo xuquuqda caalamiga ah ee diyaaraduhu ay ugu baahan karaan si degdeg ah inay ugu fadhiisan karaan meesha ugu dhow maadaama shidaalku ka yar yahay waana loo ogolaaday ugu dambeynna waxa diyaaradda afduubani ay fadhiisatay Bahrain kowdii habeenimo diyaaraddu markay caga dhigatay halkaasi ayaa ciidamada ammaanka ee Bahrain waxay hareereeyeen diyaaradda madaxa kooxda afduubka Captain Mahmoud waxa uu ku hanjabay haddii aanay ciidamada Bahrain meeshaasi ka fogaanin inuu toogan doono mid ka mid ah duuliyaasha diyaaradda waxaana uu qabsaday 5 daqiiqo oo kaliya in ciidamada Bahrain ay meesha kaga baxaan hanjabaadaasi kadibna Bahrain ayaa ciidankeeda ka saartay garoonka diyaaradaha kadibna shidaal ayaa loogu shubay siday doonayeen waxaana diyaaradda afduubka lagu wato ay u duushay dhinaca Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai markii ay soo gaadhay Dubai ayaa waxay arkeen dhabihii diyaaraddu soo caga dhigan lahayd oo lagu xanibay gaadiid ay ka mid yihiin kuwa dabdamiska Mr. Schumann duuliyaha diyaaraddu waxa uu la hadlay taawarka laga haga diyaaradaha Dubai isagoo sheegay in shidaalku ka yar yahay diyaaradana loo ogolaado inay soo caga dhigato saacadu xilligaasi waxay ku dhowdahay 5:40 daqiiqo subaxnimo waana 14 Oktoobar 1977 kooxda diyaaradda afduubay ayaa waxay weydiisteen mas'uuliyiinta Imaaraadka in loo keeno cunno biyo dawooyin iyo joornaalada wararka sidoo kalena diyaaradda laga rogo qashinka musqulaha rakaabka ayaa aad u niyad jabsanaa waxaana ay ka walaacsanaayeen sida xaalkoodu ku dambeyn doono iyo sida ay wax noqon doonaan pela manhã os sequestradores ameaçaram começar a Sheikh Mohammed bin Said wasiirkii difaaca Imaaraadka ayaa waxa uu ugu baaqay kooxda afduubku inay sii daayaan dadka rakaabka ah balse kooxda ayaa gaashaanka ku dhufatay arrinkaasi madaxa kooxda afduubka Suhayl Yusuf Akash ayaa ugu hanjabay qudha inuu ka jari doono duuliyaha koobaad ee diyaaradda Mr. Schumann waxa kaloo ay ku hanjabeen in dadka ay dili doonaan diyaaraddana ay qarxin doonaan haddii aan loo samaynin dalabkooda oo diyaaradda aan shidaal loogu shubin We are going to execute all the passengers and the crew. Mentality and rest our revolutionaries out of your imperial fascist presence, but unfortunately didn't cooperate. mas'uuliyiinta Dubai ayaa aqbalay dalabka ka soo yeeray ninka afduubka diyaaradda madaxda ka ahaa waxaana ay sameeyeen taasi oo shidaalkii ayaa loogu shubay isla xilligaasi waxaa soo gaaray magaalada Dubai wasiir ka tirsan dawladda Jarmalka galbeed iyo korneyl sare oo madax ka ahaa ciidamadii gaarka ahaa ee Jarmalka ee loo yaqaanay GSG9 waxaana ay doonayeen dawladda Imaaraadka ay ka codsadaan in loo ogolaado ciidamada gaarka ah ee Jarmalka inay yimaadaan magaalada Dubai oo ay badbaadiyaan rakaabka diyaaradda la afduubay mas'uuliyiinta Dubai ayaa ogolaaday ciidanka Jarmalku inay yimaadaan Dubai isla markaasina tallaabadaasi ay qaadaan ogolaanshahaasi kadib ciidamada gaarka ah ee wadanka Jarmalku waxa isugu yimaadeen tababarro dheeraad oo ay kaga baaraandegayaan sidii ay u wajihi lahaayeen dableyda soo afduubtay diyaaradda tababarkaasi ayaa waxa uu qaatay 80 saacadood waxaana xilligaasi la sheegay Jarmalka inay caawinayeen ciidamo magacooda loo odhan jiray SAS oo ka tirsanaa ciidamada cirka wadanka Ingiriiska intii ay tababarka ku mashquulsanaayeen ciidamada Jarmalka galbeed ayaa diyaaraddii Lancet ee afduubnayd waxa loo dhameystiray shidaalkii
12 daqiiqo habeenimo ayay cagaha ka qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Dubai waxaana ay u jihaysatay dhinaca Salalah oo ah caasimadda Cumaan. boqortooyada Cumaan ayaa u diiday garoonkooda in la keeno diyaaradaasi la soo afduubay waana ay ka leexdeen iyagoo u janjeersaday jihada magaalada Cadan oo ahayd caasimadda Yementii Koonfureed. shidaalkuna waa uu ka sii yaraanayay diyaaradda Lufthansa la soo afduubay. aan idin xusuusiye diyaaraddu markani waxay afduuban tahay maalintii shanaad. adduunyada oo dhan ayaa waxay isu sheegtay inay jirto diyaarad la afduubay. saraakiisha garoomada ee wadamada gobolka oo dhan ayaa heegan ku jiray. si kastaba ha noqotee diyaaradda Lufthansa ayaa soo gaadhay hawada magaalada Cadan. markii garoonkaasi ay ku soo dhawaadeen ayuu duuliyaha diyaaraddu waxa uu arkay in dhabbihii diyaaraddu caga dhigan lahayd lagu gooyay baabuur iyo waxyaabo kale waxaana lagama maarmaan noqotay inuu ku sii daayo oo uu fadhiisiyo si degdeg ah dhulka caadiga ah amaba jidcadaha la sinaa dhabbaha garoonka diyaaradaha. nasiib wanaag diyaaradda Lufthansa waxay si nabdoon u caga dhigatay dhulkii camuudda ahaa. rakaabka diyaaraddu xilligaasi si aad ayay u argagaxsanaayeen markii ay arkeen dhaska iyo boodhka daaqadaha ka soo galay iyo gariirka aan caadiga ahayn ee diyaaraddu ay samaysay. ciidamada Yemanta Koonfureed oo heegan ku jiray ayaa jiha kasta waxay ka xigeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadan. mas'uuliyiinta magaalada Cadan ayaa isgaarsiinta ugu sheegay kooxda afduubka inay ka haystaan diyaaradda oo aanay sii joogi karin madaarka Cadan. dablida waxa uu muuqatay inaanay magaalada Cadan noqon karin meel hadafkooda ay ku gaadhaan oo ay kula wareegi karaan maxaabiista ka maqan waxaana ay go'aansadeen in Cadan laga dhaqaajiyo. ha yeeshee labadii duuliye ee diyaaradda Schumann iyo Peter ayaa ka go'aas adeegay inay duulimaad kala sameeyaan sababtoo ah waxa ay ka dayriyeen xaaladda diyaaradda inay wax u dhintay camuudda ay fadhiisatay. dablida ayaa u ogolaaday duuliyaha koobaad inuu dhulka u dego isla markaasina uu hubiyo xaaladda diyaaradda haddii ay jirto waxyeello soo gaadhay. Captain Schumann dhulka ayuu u degay waxaana uu eegay qaybaha hoose ee diyaaradda. hase yeeshee duuliyaha oo dhulka ku sugan ayaa waxaa fursad u helay inuu u tago mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee Cadan waxaana uu ka dalbaday inay badbaadiyaan dadka shacabka ah ee diyaaradda saaran. hase yeeshee mas'uuliyiinta Cadan ayaa waxay sheegeen inaanay waxba ka qaban karin arrintaasi waxaana uu ka soo laabtay isagoo niyad jabsan oo si aad u walaacsan. kooxda afduubku waxay ka shakiyeen in duuliyaha dhulka u degay uu xogta u gudbiyay mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee Cadan. markii duuliye Schumann uu gudaha diyaaradda ku soo laabtay waxa uu la kulmay hogaamiyaha kooxda afduubka Maxamuud Cakaash oo cadhaysan kana shakisan maqnaanshihiisa waqtiga qaatay waxaana dhex maray muran iyo qaylo markii dambena sababtay in madaxa laga toogto duuliyihii koobaad ee diyaaradda Lufthansa Mr. Jürgen Schumann. markii ninkaasi la dilay kadib waxay dalbadeen in diyaaradda shidaal loogu shubo oo ay sii wadan doonaan duulimaadkooda. mas'uuliyiinta Yemanta Koonfureedna shidaal ayay ugu shubeen diyaaraddii. duuliyihii labaad ayaa lagu amray in diyaaradda uu kiciyo. diyaaradda Lufthansa 6 subaxnimo ee 17 Oktoobar 1977 waxay u jihaysatay hawada Soomaaliya iyadoo ku sii jeeda magaalada caasimadda ee Muqdisho. Su destino, Mogadiscio, República Democrática de Somalia. waxyar kadib diyaaradda Lufthansa ayaa waxay caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. madaxii kooxda afduubka ayaa waxa uu qushuucay sida Mr. Peter duuliyaha labaad uu u hagay duulimaadkaasi ugana degay magaalada Muqdisho waxaana abaalgud uga dhigay inuu xorriyadiisa siiyo isla markaasina uu xor yahay diyaaradda inuu ka dego meesha uu doonana uu tagi karo maadaama ay Muqdisho tahay meesha ugu dambaysa ee aanay jirin meel ay u sii dhaafayaan.
balse duuliya Peter ayaa door biday in rakaabka iyo shaqaalaha uu wax la qabi doono oo aanu tagi doonin meelnaba. Die wussten von gar nichts. Wir kamen aus heiterem Himmel darunter, über den Platz geflogen, eine Kurve nach links gemacht und sind da gelandet. waxyaabaha dawladdu ay sheegteen waxaa ka mid ahaa in loo sii daayo maxaabiis ka tirsan ciidamada guduudan ee ka tirsan fallaagada Jarmalka oo gacan saar ay lahaayeen Falastiiniyiinta. fallaagadaasi ciidanka cascas hogaamiyahooda ayaa waxa uu ku xidhnaa wadanka Jarmalka galbeed. waxa ay dalbadeen in maxaabiistaasi Muqdisho loogu keeno oo ay dhaafsan doonaan diyaaradda Lufthansa iyo rakaabka ay soo afduubeen. afduubayaasha ayaa loo sheegay in dawladda Jarmalku ay aqbashay dalabkooda, isla markaana maxaabiista in Muqdisho la soo gaarsiiyo ay qaadanayso saacado badan. We will guarantee your safe conduct. We request you, innocent passengers should not suffer for something which they can do nothing. Over. And I hope that the German authorities use our demand. There won't be any consideration for what we started by. dhab ahaantii dawladda Jarmalku markaasi ma doonaynin in maxaabiis ay ku bedelato diyaarad iyo rakaabka, balse waxay ahayd farsamo la doonayay in qalbiga loogu dajiyo afduubayaasha si aanay waxyeello u gaarsiinin shaqaalaha iyo rakaabka. intii wadaxaajoodka kooxdaasi lala sameynayay ayuu ra'iisul wasaarihii Jarmalka galbeed waxa uu isku dayay inuu heshiis degdeg ah la galo dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya ee uu hogaaminayo General Maxamed Siyaad Barre. waxaana uu Muqdisho u soo diray ergey gaar ah oo lagu magacaabi jiray Hannes Chergin iyo taliyihii ciidamada gaarka ah ee Jarmalka ee loo yaqaanay GSG9 oo lagu magacaabi jiray Ulrich Wichner. waxaana ay soo gaareen magaalada Muqdisho iyagoo ka soo duulay magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia, iyagoo wadaxaajood la bilaabay mas'uuliyiinta dawladdii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre. waxa anagoo ka xun ay misna nagu kaliftay ay noo sheegeen in ay dileen pilotkii diyaaradda waday. We are very deeply sorry to learn that these hijackers have killed the pilot of the plane. se iyagu noogu sheegeen. That's as they told us. waxay nagu yidhaaheen meydkiisa naga qaada waayo dee wuxuu nagu hayaa muxuu ahay meydku. They told us to remove the body. waana ka qaadnay meydkii waxaan geynay meel lagu. We did so. ilaa haddeer annaga waxay noola egyihiin dad muxuu ahay aad u qasan yani. As far as we can see and judge, they look to us to be rather confused. dawladdii Soomaaliya ayaa waxa Jarmalka ay u sheegtay inay isku dayayso in ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ay diyaaradda badbaadiyaan, balse dawladda Jarmalka galbeed ayaa codsatay in ciidankeeda gaarka ah ogolaansho loo siiyo in hawshaas ay qabtaan oo diyaaradda ay badbaadiyaan. wada hadallo dheer ayaa dhaxmaray dawladdii Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta Jarmalka. ugu dambeyntiina Soomaaliya waxay aqbashay in ciidamada Jarmalka ay yimaadaan magaalada Muqdisho oo howlgalkaasi ay sameeyaan iyagoo kaashanaya kuwa Soomaaliya. intii wadaxaajoodku socday ayaa ciidamadii gaarka ahaa ee Jarmalka galbeed oo loo yaqaanay GSG9 waxay qorsheeyeen socdaal ay ku imanayaan magaalada Muqdisho si howlgal ay u fuliyaan, waxaana ay ka soo xidhxidheen oo ay ka soo dhaqaajiyeen garoon ku yaala magaalada Bonn ee dalka Jarmalka, iyagoo waqti yar ku sii nastay dalka Djibouti. 18 Oktoobar 1977 sideedii habeenimo ayaa diyaaraddii siday ciidamada gaarka ee Jarmalku waxay caga dhigatay magaalada Muqdisho, iyadoo diyaaradoodu ay damisay dhammaanba iftiinkeeda si aanay u dareemin kooxda afduubku. muddo 4 saacadooda ayaa ciidamada Jarmalka ay ku qaadatay inay la soo degaan qalabkooda isuna diyaariyaan howlgalkaasi. taliyihii ciidanka gaarka ah ee Jarmalka ayaa waxa uu amray in la qaado tallaabooyin diyaaradda lagu soo furanayo. saacaduna waa 2 habeenimo. ciidamada Jarmalka oo wata salaamada yaryar ee wax lagu fuulo ayaa diyaaradda hoosta ka galay, waxaana ay fureen albaabada diyaaradda ee loogu talagalay dadku sida degdega ah inay uga baxaan marka masiibooyinku ay diyaaradaha qabsadaan.
hor intii aan albaabada la furin kooxda afduubka ayaa lagu mashquuliyey isgaarsiinta waxaana loo sheegay in diyaaradda maxaabiista waday ay ka soo duushay Qaahira oo ay shidaal ka soo qaadanayso kabtan Maxamuud Cakaash hogaamiyaha kooxda afduubka waa uu ku farxay warkaasi balse ciidamada Jarmalku xilligaasi waxay ku hoos jiraan diyaaradda waxaana ay ka shaqeynayaan furitaanka albaabada dheeraadka ah ee diyaaradda si loo soo daadgurayo dadka rakaabka afduuban ciidamada ammaanka ee Soomaaliya oo caawinaya kuwa Jarmalka ayaa meel diyaaradda u jirta 65 talaabo oo diyaaradda horteeda ah waxay ka qarxiyeen dab weyn taasi oo ahayd talaabo lagu khiyaameynayay kooxda afduubku inay shakiyaan oo ay ku yaacaan qaybta diyaaradda laga wada ee loo yaqaan cockpitka si ay u eegaan rasaasta dhacaysa waxay tahay ciidanka Jarmalkuna waxay diyaaradda ka soo galeen albaabada dambe iyagoo xoog ku furay dagaal ayaana gudaha diyaaradda ku dhaxmaray ciidamada Jarmalka ee dableyda hubeysan waxaana toogasho lagu dilay laba kamid ah dableyda wax afduubay oo kala ahaa Wabiil Xarbi iyo Hinda Arameh waxa kale oo la dhaawacay laba kale oo kala ahaa hogaamiyaha kooxda Suhayl Cakaash iyo Suhayl Saayi y la abate. Cayó al suelo gravemente herida. balse Mr. Suhayl Cakaash amaba Kabtan Maxamuud oo ahaa madaxa kooxda afduubka ayaa 4 saacadood kadib u dhintay dhaawacyadii soo gaadhay waxa kale oo dhaawacmay mid kamid ah ciidamadii Jarmalka iyo 4 qof oo isugu jiray rakaabka iyo shaqaalaha diyaaradda qaar kamid ah rakaabka oo saxaafaddu ay ka wareysatay wixii ay arkayeen markii ciidamada Jarmalku ay diyaaradda soo galeen ayaa waxay yiraahdeen waxaanu aragnay iyadoo albaabada ay soo jabiyeen oo gudaha ay ku jiraan waxaana ay noo sheegeen in meeshaanu ka baxno mas'uuliyiintii waddanka Jarmalka galbeed oo u dhagtaagayay waxa ka socda Muqdisho sida ay ku dambeyn doonaan ayaa loo sheegay howlgalkii inuu soo dhamaaday Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka galbeed ee ku sugnaa magaalada Bonn ayaa loo sharaxay natiijada ka soo baxday howlgalkii Muqdisho waxaana loo sheegay inuu ku soo dhamaaday dilka 3 kamid ah dableyda wax afduubay mid kamid ah dableyda askari ka tirsan ciidamada gaarka ah iyo 4 qof oo rakaab ah inay dhaawacmeen dhammaan rakaabka intiisa kalena la badbaadiyay howlgalkaasi markii uu soo dhamaaday kadib ayaa rakaabkii diyaaradda iyo ciidamadii Jarmalkuba waxay ka dhoofeen Muqdisho iyagoo u duulay magaalada Bonn oo ahayd xaruntii Jarmalka galbeed hayeeshee waxaa Soomaaliya ku hadhay Suhayla Andarwiis oo ahayd gabadha kaliya ee ka badbaaday kooxdii afduubka diyaaradda geysatay iyadoo lagu daweeyay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya dawladdii Maxamed Siyaad Barre ee Soomaaliya ayaa maxkamad ku saartay magaalada Muqdisho waxaana Suhayla Andarwiis ay Soomaaliya ku xukuntay 20 sano oo xabsi ah hayeeshee Suhayla ayaa markii 3 sanadood ay ku jirtay xabsiga Soomaaliya waa la sii daayay kadib markii ay la soo daristay xaalad daran oo caafimaad la'aan ah Suhayla ayaa waxaa loo dhoofiyay dalka ay u dhalatay ee Lebanon gaar ahaan magaalada caasimadda Beirut kuniya 1991 ayaa Suhayla oo ay weheliyaan sayigeeda iyo caruurteeduba waxa ay u guureen dalka Norway halkaas oo mar dambe oo ku beegan 1994 ay ciidamada bilayska dalka Norway ay aqoonsadeen inay tahay gabar kamid ah kuwii afduubay diyaaradii Jarmalka ee Lufthansa xabsiga ayaana loo taxaabay waxaana ay u gacan galiyeen dawladda Jarmalka oo xilligaasi raadinaysay dawladda Jarmalkuna waxay ku xukuntay 12 sanadood oo xabsi ah balse markii ay qaatay 3 sano oo xabsigeeda kamid ah ayaa waxa laga sii daayay jeelka kadib markii xanuun ba'an iyo xaalad caafimaad darro ay la soo daristay golayaasha sharci dejinta ee Jarmalka ayaa aad uga dooday kiiska la xiriira xariga Suhayla Andarwiis waxaana ay noqotay haweeneyda kaliya ee dunida 2 jeer loo xukumay dambi isku mid ah warbixinaha dhinaca taariikhda laga qoray
nolosha Suhayla ayaa waxaa la sheegay inay ku nooshahay waddanka Norway oo ay dib ugu soo laabatay markii Jarmalka laga soo daayay. haddii aanu dib ugu noqono tallaabada ay qaadeen jabhaddii Falastiiniyiintu iyo ciidamadii guduudnaa ee jabhaddii Jarmalka markii ay maqleen in Muqdisho lagu dilay Kabtan Maxamuud iyo xubnihii kale ee afduubay diyaaraddii Lufthansa iyaga laftoodu waxa ay dileen nin Jarmala oo gacanta ugu jiray waxaana warka dilkiisa ay u sheegeen wargeys ka soo bixi jiray waddanka Faransiiska. Ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Jarmalka galbeed Helmut Schmidt ayaa warbaahinta dunida u sheegay in Jarmalku aanu marnaba wada xaajood la gali doonin koox kasta oo sidan oo kale ah. dalalka reer galbeedka qaar ka mid ah ayaa ku bogaadiyay go'aanka uu ku qaatay in dableyda wax afduubtay diyaaradda lagu weeraro. inkastoo ay jireen hogaamiyaasha dalal badan oo adduunyada ka mid ah oo dhaliilay khatarta loo bareeray oo dhibaato kasta ay suuragal ahayd in dableyda ay kula kacaan rakaabka diyaaradda. raadraac lagu sameeyay wararka warbaahinta adduunyada ay ka qoreen diyaaraddaasi Lufthansa la afduubay waxaa ka mid ahaa diyaaradda oo la odhan jiray Lancet waxaa loogu magacdaray magaalo ku taala dalka Jarmalka. waqti xaadirkana diyaaraddaasi la afduubay ee Lancet ee ay lahayd sharikadda Lufthansa waxaa loogu magacdaray akademiyadda duuliyayaasha ee sharikadda Lufthansa ay ku leedahay Jarmalka. que transporta al coronel Wegener a Barry Davis y a un pequeño equipo militar. diyaaraddaasi howlgalkeeda afduubku ku dhamaaday Muqdisho waxaa markii dambe sharikadda Lufthansa ay ka iibisay sharikad laga leeyahay waddanka Mareykanka oo lagu magacaabo Presidential Airways 1985. haddana waxaa laga sii iibiyay sharikad kale oo laga leeyahay dalka Brazil oo lagu magacaabo TAF. ugu dambeyn diyaaraddaasi laf ahaanteedu waxay noqotay mid howlgala waana ay ka fariistay shaqada duulimaadka sanadkii 2008 kadib markii ay xumaatay. magaceedii hore ee Lancet ayaa waxaa la hadhay Lufthansa waxaana loo bixiyay diyaarad kale oo cusub oo sharikadda Lufthansa ay leedahay taasi oo nooceedu ahaa Airbus 330. sanado badan kadib diyaaraddaasi Muqdisho afduubkeedu ku soo dhamaaday iyadoo oo duugowday waxaa dib loogu celiyay waddanka Jarmalka sanadan 2017 waxaana la dhigay madxaf ku yaala waddanka Jarmalka. taariikhda duulimaadka ee diyaaradaha adduunyada si weyn ayaa loogu xusaa qisada afduubka ee diyaaradda Lufthansa ee howlgalkeeda uu ku soo dhamaaday Soomaaliya.